su-aashaas waxay ka turjumaysaa masalada ku saabsan bisinka salaada marka lagu jiro faatixada ma kor baa bisinka loo akhrin mise hoos baa loo akhrin mise waa laga tegi waa mas'alo waayahan dambe xadgudub badan lagu sameeyey oo xajmigeedii iyo qadarkii iyo qiyaastii ay kala hayd culimada salafka iyo fuqahada agtooda buunbuuniya ka badbadin baa la geliyay oo ninka diidan faatixada in hoos loo akhriyo ama laga tagana dadka khilaafsan wuxuu ku tilmaamay inay salaadoodii burtay oo wuxuu ku tilmaamay inay bisinkii bililiqaysteen say dadka qaarkood ahaa bisinkii waaba la bililiqaystay bale oo xadgudub iyo dagaal bay qaadeen qaarka bisinka in la siraysto u arka inuu laazim yahayna cid bisinka kor u akhrinaysa markay arkaan ayaguna waxay u qaateen inuu meelka dhac weyn la yimid mas'aladaasi marka dhinacyo fara badan baa lagaga xadgudbay xaqiiqadeeda marka aan wax yar isdul taagna xagee ka soo jeedaa masaladu waa sidee nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan Bukhari iyo Muslimna ay soo saareen annahu sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yastaftihuna alqira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo saaxiibkii Abu Bakr iyo saaxiibkiisii labaad Umar markay wax akhrinayaan salaada waxay ku bilaaban jireen alxamdulillahi rabbil alamin halkaas ay ka bilaaban jirtay akhrintoodu bismillaahi lama shay hadiiskaas muxuu tilmaamay bisinka miyay qarsadeen mise wayba ka tageen qiraa'adoodu alxamdulillah bay ka bilaaban jirtay xadiid kala jiro oo Salama laga warinayo oo Ahmed iyo Abu Daawud iyo Tirmidhi soo saareen isaguna saxiix oo ay leedahay Salama rasuulku sallallahu alayhi wasallam kana yuqatti'u qira'atahu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Salama waxay leedahay nabigu markuu faatixada akhrinayay quraanka aayad buu ugu istaagi jiray markaasay cadayso waxay tiri wuxuu dhihi jiray bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaanir rahiim maliki yawmiddin maxay diidan tahay yani waxay diidan tahay in aayadaha la isku daba qabto iskuma daba qaban jirbelada bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaanir rahiim maliki yawmiddin inaad wixiiba hal nafas kaga baxdo taamuna sameyn jiray beelada laakiin ayad walba goonideedu u goon jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidka maxaa ka muuqday isagana inuu nabigu akhrin jiray ya bismillaahir rahmaanir rahiim inuu akhrin jiray ka muuqdo waana xadiis sugan waa taa waxa xadiis badan oo ku soo aroortay ya aathar saxaabada iyo salafka inta bale masaladan taariikhdeeda su'aashu waxay ku saabsan tahay goormay bilaabatay in bisinka akhrintiisa laga tago waxaan leeyahay waxay bilaabatay إلى أيام نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مالمه صحابة إلى أئمة سلفك مسألة وهابية كانت معها سيكل هذا نوده يا وذا دا ورك ضدك وحي يقول لك وهابية سعودي كسو أرضي بعد ضدك سوق جلسي بيسين كالله قصدي حلقته هذا رزق حسن معه مراجع ذا فقه مرك الله بلابته ورك سوى بينوبيا haddaan wax yar idin dulmaro sida culimadu ugu kala tageen masaladaasi qaar kamida waxay ku tageen bismillaahir rahmaanir rahiim oo suuradaha bilowgooda quraanka ba kamid ma midda ku jirta suuratu namli suuratu namli dhexdeeda ku jirta taa waa la isku waafaqsan inay quraanka kamid tahay laakiin bismillaahida kale suuradaha bilowga ah culimadeeni salafka qaar kamida waxay leeyihiin quraanka ba kamid waxa loogu talagalay in lagu kala jarjaro mooyee laakiin aayad quraan ma tayib taa markan kan nimaadno yiraahdo faatixada marka la akhrinayo fuqahadii salafka qaar kamida waxay ku tageen
markaad salaada tukanayso faatixada akhrinayso bisinka akhrin bamaysid hoosna u akhrin maysid korna warkeeda iska badaa isaga tag bisinka dhan meeshaba kuma jireen yaa sidaa qabay waxaa qabay al-imaam مالك بن أنس وشيخ الشافعي إمام دار الهجرة مدونة مالكية السيدة كسوغا وحويري هي السنة وعليها أدركت الناس أبول طريقة أن دتك كسوغاري علماء وحوها مدينة وشوغا قرني قلوات بون النولي وحن كسوغاري علماء إن بسن كرنان لغت تقابا أون لا أخرين بفاتحة سو مالك ما وحاسدا يسوون كتغي ان لا اخريين بكر iyo hoostoona al-imam al-awza'i imam ahli sham isagana waqtiyadaas ah sham caalimkeedii waa qoladaas waxay yiraahdeen sideedaba loo akhrinayo hal isaga tago tayib qolo kaleeto oo culimada badankood iyo madaahibtu waxay qabaan in faatixada maxaan u jeedaa bisinka la akhriyo laga tagin iyagii baa marka iskhilaafayo qaarna waxay leeyeen hoos ha loo akhriyo qaarna waxay leeyeen kor ha loo akhriyo waa kuwe waa kuwa qaba faatixada ha la akhriyo waxaan u jeedaa bisinka ha la akhriyo iyagii baa iskhilaafayo qaarna waxay leeyeen hoos ha loo akhriyo qaarna waxay leeyeen kor ha loo akhriyo qaarna waxay leeyeen ruuxu khiyaar buu leeyahay kor ha u akhriyo hoos ha u akhriyo khiyaar waa sidoo doona labadaba uu sameyn kara intaba waa madaahibtii salafka mas'alaha daama waxa qaba in kor loo akhriyo bisinka saxaabada qaar kamid ah laga wariyaa aa'imadana waxa qaba imaam shaafici saas daradeed baad wadaadadeena aragteen hadiiba bismillaahi ay maqli waayaan waa dagaal qaar badan oo kamid laana madhabka shaaficiga badankood isaga un bay garanayaan meel kale yaa cid kala qaba qaar badan oo kamid kama warhaya imaam shaafici wuxuu ku tagay bisinka kor ha loo akhriyo tayib waxa ku tagay bisinka in hoos loo akhriyo oo aan kor loo qaadaynin lagana tagayn laakiin hoos loo akhrinayo waxa maray a'immadii salafka al-imam ath-thawri sa'id ibn sufyan ath-thawri waxa maray al-imam abu hanifa waxa maray ahmad ibn hanbal waxa maray abu ubayd al-qasim ibn sallam ragaas oo dhan baa maray saxaabada badanna waa laga wariyaa taabiciinna waa laga wariyaa bisinka in hoos loo akhriyo oo laga tagay soo ayma weyn ma hayaguna warag halis awaan dhankay u bateenba qolana waxay yiraahdeen bisinka korna waad u akhrin kartaa hoosna waad u dhigi kartaa khiyaar baad leedahay sidana waxa qaba oo laga wariyo waa qowl ama laga wariyo al-hakam ibn tayba miwa kii salaf muxuu ahaa faqih aha waxa kale laga wariyaa ishaq ibn rahwiya khiyaar baad leedahay hoos u dhig kor u akhri raggaan idin sheegay oo dhan wax quruuntan ama wax wahaabiye ka warhayana ma waa quruunte waa shaafici waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo shaafici shuyuukhdiisii iyo ardadiisii iyo laftiisii waa ayagii baa masaladiisa isugu khilaaf waxbay kala daliishanayaan midba waxba la xoog batay saxaabadii nabiga ku kala aragti bedelna masalada noocaas oo kale sida u taala mar haday sidaas tahay la haraj wax dhib ama leh hoos u akhri waa sida xoog badan madaahibta qabta ha lagaba tagaba sida maalikiyada iyo awzaaciyada haduu ruuxu ku qanco culimadoodu saa u sheegaan oo saa uga tagaan salaadoodu waa saxaysa adiga shaafiiciyadu hadeen agtaada ka saxnay iyaga agtooda waa saxaysa waana muslimiin saladuna mas'ala ijtihaadiya ruuxi hoos u siraystay oo ay la xoog badato la ishkaal ruuxi madhabka shaafici raaco kor u akhriya oo sidaas la xoog badatay dib male Soomaali masaladu waxa daran uu hawo in laga dhigo meel aan dagaalba joogin ba qoorta la isla galo hadeer maxaa soo leeynaysan Sooma waliba sida habooni wax weeyaan hadii dadkaasi ay yihiin dad madhabka shaaficiga haysta urfiga meesha ka jirana uu bisinka in kor loo akhriyo haduu yahay ila dadku la baro oo laga dhaadhiciyo fawda in laga kiciyo ma aha oo lagu bilaabo bisinka in hoos loo dhigo laana waxa fitnada ka dhalanaysa ka badan masaladuna mas'ala ijtihaadi masaa'isha noocan oo kala marka dib male waxaan ka jawaabayaa inta markaan ka baxno ayada uu keenay saa'ilku oo ilaahay wuxuu yiri walaqad aataynaaka
7 من المثاني والقرآن الكريم والقرآن العظيم يعني آيات فاتحة يكسب صنطة وأن الصح وفاتحة يكسب صنطة حديث كالنبي قال الشيخ صلى الله عليه وسلم 7 المثاني والقرآن العظيم الفاتحة وكما قال صلى الله عليه وسلم فاتحة على قوضة مركة تضبع آيات واحد وحسواش واحد مركة هذا ترى هذا بسنكي هلقته قلنا قبته هلقته تضبع آيات حقيقة صارية إلا القرآن كاب الشيء إني تضبع آيات الفاتحة دوتا صوبا وأنا إجماع والسكوة فقصية هي فاتحة إني تضبع آيات دوتا قل يا هيدي مركب بسنكو فاتحة كميد مي هلا يسقطه سواء مالكي أو زاعي ما حي حجيبي آيات تضبعات كسو صارين جوابته وحوي آيات التضبعات وحي كدغيان صراط الذين أنعمت عليهم بآيات كدغيان غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآيات كله تضبع آيات ضمتها مركب بسنكي هدي لغتو halkaas ay aayad ka soo saareen quraada madaahibta quraada quraanka akhridana ayaguna saas isugu khilaafsay oo qaar ba waxay ka dhigayaan siraatal ladina an'amta alayhim aayad ka dhigayaan yani quraada quraanka halka aayad ba qaar ka dhigayaan qaarna waxay ka dhigayaan may aayad ma ahe aayadu wala daalina bay ku dhamaataa jawaabtaasi ma caddahay marka bismillah hadda dhahdana oo bisinka faatixada ku tirisana صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بآيات التضباط بسنكو فاتح هذا كميد مع الآخرين معينا هدي مذهب كعلماء مرتين بسنك هدي كتجين آيات كلا نحن كسو صارينه صراط الذين أنعمت عليهم بآيات كدجين طيب هل كوحى كسو بحري قرآن كآياتين تيسو قار كميد واجتهادي آيات هل كان يكون يكتهي آيات كلا بالله بنيسا سمارتي qaar kamida waa ikhtilaaf fuqaada isku khilaafay halkan waa aayad ma aha aayada kale raacsan tahay masaladaasi marka mas'alo lagu ictiraadi kara ma qolada qabta haba laga tagaba ama qolada qabta hoos ha loo akhriyo bisinka yaan laga tagin hoos ha loo akhriyo qolada qabta walaqad aataynaaka 7 min almathani miyad xujaysan kartaa anu kama tagin ba hoos baan ka akhriyay inay aayad quraanka faatixada kamidana waan qabaa salaada in la yimaadana waan qabaa لكن هوس بان كأخري مياد ليه تضودي آيات يتص حقيقة تعالى بسم كان كاجا بالله بسم الله الرحمن الرحيم تضودي وابك وام ساس درادي ولقد آتيناك 7 من المثاني حجكم معها دتك يري بسم كهلا أخريو أما كره الله أخريو أما هوس الله أخريو آيات كما هو إيمانس لكن آيات وحي كهر إيمان قول ده يري بسم كان الله أخرين با صوما أيجنا وحي كجوابيان فاتحة دحدي آيات كلا تضبط كسو صارين هذا يبيسنك كتجه كل ذلك النتيجة صباح ده محيطها علمي قاسي مسألة وكتشرو وذات سفينها أخرستيو سر عليه إنه ضدك كوف النيما علمي إنه صاقع بالنوى نقاش كيسية دود كيسية محل جيدي سلف كذا سوق الأبصنايا وذات مركب وحابة أنكور هينين فتنة إنه كأبو رماه مسألة إنه مسألة اجتهادية أما دي صحابة دي سلف كأسكو خلافي تدك هاللود دايوني والبسيط الدين هان وقو قناعسين فتنة يدبنا يا لقد لين والله أعلم